haweenweynaha ku bahoobay ururka haldoorka SNM oo hooyooyinkii iyo xaasaskii saraakiishii SNM ee ku geeriyooday dagaalkii u dhaxeeyay dawladii dhexe Soomaaliya iyo ururkii SNM oo kulan wareed ku qabtay magaalada Burco ayaa ka codsaday xukuumadda Soomaaliland in laga taageero caruurtooda agoonta waxbarashada iyo dhul ay degaan oo aanay haysan badidoodu waxaana ka hadlay madasha gudoomiyaha ururkaasi Marwo Sahra Muuse Tawakal gudoomiye ku xigeenka ururka Kinsi Yusuf Maxamuud iyo xubno kale oo ay kamid ahaayeen Caasha Faarax Ismaaciil Saada Maxamuud Haariye iyo Sahra Xasan Warsame sidoo kale Raxma Axmed Warsame ayaa madasha ka tirisay gabay qiiro leh anagoo gabadhii Mujaahid Maxamed Cali ka dhintay gudoomiyaha ururka haldoorna aan ahay anagoo ururka la magac baxay haldoorkii SNM salaamayna madaxweynaha Soomaaliland waxaanu salaamayna saddexda xusbi qaran oo nala ballamay oo xafladayadan yiri waan ka soo qayb galayna haddana mid walba cudurdaar sheegtay oo aan cid inoogu iman haddana mid walba bartiisaan ku salaamayna hadafka iyagu yahay oo isu kaaya keenay iyadoo ururkii SNM magaciisa aad moodo inuu sii baaba'ayo sii tirtirmaayo oo ururkii SNM halkii waa ama wax looga qaban lahaa ama laga daryeeli lahaa xukuumadda iyo xusbiyaduba u sameyn lahaayeen ee la oran lahaa dadkii caynka ah xagay ku maqan yihiin inaanu anagu ismuujino oo aanu isu tagno oo aanu tashano oo cidiina danaysa oo anaguna aanu danayno oo SNM xuskeedu ku soo ururay 18 May kama xumina waan hambalyeynayna laakiin waa in 18 May xuska SNM waa in laga kordhiyo madaxweynaha farteeda ku dooranay afkayaga ku caayimayno laakiin xukuumadda waxaanu doonaynaa inay tashi nala gasho waligeena mushashadiis ma soo taagan waxaan nahay hooyooyinkii mujaahidiinta SNM ka dhimatay marka waxaan doonaynaa anagu haddaan xuquuq wadanka ku leenahay in xuquuqdeedii Soomaaliland si fiican ay noo siiso Allahu Akbar aanu isugu nimi annagaan cidna eebeelin cidna waxba oranaynin inaanu dantayada iyo arrimaha iyaga aanu ka hadal madaxweynaha Soomaaliland caradaanu qabnay oo waxaanu ku ilowday sidoo wuxuu qabtay waxaan isridaadana ayaa 30 jir ka dhiga xuquuqda naga maqan waxa weeye nin waliba wuxuu dhintay Soomaaliland waxa weeye caruurtayadii aanu faariya laad ku soo barnay foonfoor kaga soo baxnay jamaacadii waanu laanay nin baheed aan waxaan ka tiriyay maalmaha kamid magaalada meel kamid ay horiyimi oo qawan cagaaga ninkii baan la hadlayay ninasna ma waxaan dhigeysiga dalkaygiyo ninkii guusha dhaliyo kuwa aad u gubatee garaadka lahayd iyo maskaxdii u guurtee gobonimo u dhalisaan ka xareynin gabadano koona kuma hawanayaan dhamaantoodna may garan waxa aad gusha tahay qadiidka lugaysa kaba kuma galiyaan wana caga gubiyota timaha garbaha maray guudkaaga siigada iyo gooni socodka goortan ku halacsaday galiliyada anigu iyo guurtii iyo cuqaaliyo inta ruux garaadii madhagalina kuma arag kuwa gooryaayaan dhalilaha gudbinaye gooska u dagaalama dimuqraadi golokeen anigu ma fiirshaan mas'uulkeena guudiyo kuwa gayiga maamula inkastoo la gaadhayn guulahay sameeyeen hayeeshee ku gabo oo guudkaaga warramayo garabkaaga ma iman soo dhihi caagla laabki gaabnaa iyo kaaraha silsilada seesayda iyo alam silataan hubkiini cadow seeda idin jara suuriyaha ugu oodmina ilaahay salaamaad nabad galabaan idin leeyahay Albaar Maxamed Boos TV caalamiga Universal Bro